السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحمديني كبيحو برودكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan maanta walaal maxaan ugu soo gudbinayaa 7 qodob aad ku heli kartid subscribe badan. haddii aad hadda haysato YouTube channel waa inaad ka fikirtid sida aad u heli kartid subscribe badan iyo sida aad u kordhin kartid views-kaaga YouTube. in ka badan 1 bilyan oo dad cusub ah ayaa soo booqda shirkadda YouTube bishii. YouTube waa goob weyn oo lagu talagalay inay dadka ku soo bandhigaan xirfadooda dhanka internetka iyaga oo sameysanaya xiriir shaqsiyeed oo la socdaan kuwa raacsan. qorshe u samee muuqaalkaaga. talaabada ugu horeysa aad ku bilaawi lahayd safarkaaga YouTube waa inaad qorsheyso waxa kanaalkaagu noqon doono. go'aanso waxay tahay inaad jeceshay abuurista iyo diirisaarista horumarinta xirfadaha la xiriira. sameynta waxaad jeceshay waxay muhiim u tahay guusha YouTube iyo noloshaada. 2. soo saar waxyaabo aad ku firfircoon tahay. waxaad u baahan tahay inaad sameyso muuqaalo nuxur leh oo ku habboon waxqabad iyo madadaalo. xaqiiji inay muuqaaladaada aysan ka badnayn 5 ilaa 10 daqiiqo. wax kasta oo aad sameyso ka hor intaadan gelin YouTube-ka isku hubi inay fiidiyoyaasha yihiin kuwa aad u firfircoon. waxay noqon doonaan kuwo qiimo u leh macaamiishaada ku xiran kanaalkaaga YouTube. 3. soo kordhiso noqnoqoshadaada. macaamiisha YouTube badanaa ma jecla kanaal aan soo saarin muuqaalo joogto ah, gaar ahaan da'da digitalka maanta. macaamiisha waxay rabaan si joogto ah madadaalo. waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelato inaad la socoto dabagalka macaamiishaada. iswaafajinta ayaa ah furaha horumarinta xiriirka dheer ee lala galo macaamiisha. isku day inaad fiidiyowgaaga waqti ku habboon la wadaagtid macaamiishaada ku xiran YouTube-kaaga. isku day inaad daabacdo 1 fiidiyow toddobaadkii ama ugu yaraan 1 ama 2 goor bishii. 4. baro sida loo hagaajiyo ciwaanka magac bixinta fiidiyowga. mid ka mid ah habka ugu fiican ee la sameyn karo waa inaad u bixiso fiidiyowgaaga magac. waa inaad fiidiyowgaaga xarfo kooban oo dadka fahmi karaan. magac bixinta muuqaalka waa inay islahaadaan waxaad sheegaysid ama aad ku sharaxaysid fiidiyowga gudihiisa. description-ka ama saduuqa tilmaamaha adigoo adeegsanaya faahfaahin gaaban ka sii macaamiisha muuqaalkaaga wuxuu ku saabsan yahay. 5. ka dhig kanaalkaaga mid soo jiidasho leh. dadka soo booqanaya kanaalka waxay huban doonaan inay ixtiraamaan ay ku kalsoonaadaan kanaalkaaga hadduu yahay mid soo jiidasho leh. isku day inaad u nashqadeyn kartid sida hadda shaashada kaaga muuqato. 6. nashqadeynta thumbnail waa erey loo isticmaalo nashqadeynta oo aad ku soo jiidan kartid dad cusub inay daawadaan muuqaalkaaga. thumbnail aad ayuu muhiim u yahay. waa inaad muuqaalkaaga u samaysid thumbnail. muhiimadda ay leedahay textka. sida laga soo xigtay YouTube-ka, text waa mid ka mid ah siyaabaha ugu muhiimsan ee lagu barbar dhigi karo fiidiyowgaaga natiijo raadinta YouTube-kaaga. textka ayaa caawinaya dadka isticmaala fiidiyowga markii ay raadinayaan goobta. marka isticmaalaysa eray muhiim ah ayaa lala raadinayaa fiidiyowga ayaa ka muuqan doona natiijo raadinta. iska ilaali textka inaad si qaldan u isticmaashid waayo muuqaalkaaga marka la raadinayo ayay hoos u dhigi karaa dadka marka ay raadinayaan fiidiyowgaaga. fadlan haddaad muuqaalkan ka heshid subscribe and like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.